wafdigani ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee soo gaaray magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxaa qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya iyo saraakiil ciidan waxaana digida diiruda wasqaleef ee magaalada Beledweyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa si mug iyo miisaan bale ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo hore u soo joogay Beledweyne xubno ka mid ah labada gole ee dowladda Hirshabelle madaxda maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee ADMIS iyo boqolaal ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu ka soo degay diyaaradda uu saarnaa wuxuu salaan gacaltooyo mid uga canqaaday dhammaan mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugnaa garoonka isla markaana u diyaarsanaa soo dhaweyntiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin kooban ka siiyay xaaladda guud ee Hirshabelle si gaar ah howlgallada ka dhanka ah kooxda qawaarita argagixisada Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Hirshabelle iyo guulaha laga gaaray asigoona tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan aad ku timid Hirshabelle inaad shalay iyo maanta Hirshabelle ku sugan tahay aad ayay noo farax gelinaysaa waxaad la socotaa howlaha baaxadda leh ka socda Hirshabelle lagula diranayo kooxda qawaarita meesha ay marayaan meel wanaagsan ay marayaan runtii waa ka mahad celinaynaa booqashada iyo garab istaaga ee dhiirigelinta waxaa kaloo ka mahad celinaynaa hawsha ka socota Hirshabelle ee lagula dagaalamayo cadawga meeshay joogto ma gaari lahayn guulaha isdaba joogana lama gaari lahayn haddayna adiga ahayn waa kaaga mahad celinaynaa khayr Allah ku siiyo hadday tahay talada iyo hadday tahay waxqabadka intaba waa ka mahad celinaynaa bulshada Hirshabelle madaxweyne way abaabulan tahay waxay diyaar u tahay inay cadawga iska dulqaado dhibaato wuxuu u geystay hore uu geystay cadawgu waad arkaysid maaragtay xafiiska dawladda ay ku shaqeynayso sidii u burburiyeen guud ahaan dadkan indhaha u ahay oo amba aqliga ama indha maaragtay aqoonta u saaxiibay amba dadka runtii dhibaatada inoo geysteen lama kala gaaro laakiin maanta meel muuqata ay joogtaa guula noo muuqato insha Allah hadii la raalli ka noqdo iidoon loo kala hirin cadawga waa la iska dhameystiraa waxaad mara ka tahay webiga ka bari Hirshabelle meel fiican ay maraysaa degmada aaday baan la isugu tagay ciidana insha Allah ciidanka xagga ka soo socda iyo midka inta ka socda waqti dhow isgaari doonaan kadibna webiga ka dugaan isula jeesan doonaa guud ahaan Soomaaliya intay meel ka joogaan kama heerayno Hirshabelle waqti aan dheerayn inaan ka cirib tirnaan rajeynayna insha Allah madaxweyne mar labaad mar saddexaad soo dhawaabaan ku leenahay waana kaaga mahad celinaynaa sida dhow aad ula socoto xaaladda ka jirto Hirshabelle hadday tahay horumarkii iyo hadday tahay gargaarkii iyo hadday tahay dib u xoreynta intaba talada iyo waxqabadka ka geysatan waa kaaga mahad celinaynaa mudane madaxweyne soo dhawaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa uu ku soo gaaray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ugu horeyn si wadajir ah ugu mahad celiyay maamul iyo shacab soo dhaweynta diiran ee ugu sameeyay magaalada Beledweyne waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in ka go'an tahay dowladdiisa in dalka laga saaro kooxda maafiyada argagixisada Al-Shabaab dadka reer Hirshabelle uga mahad celiyay sida uga go'an tahay dagaalka ka dhanka ah qawaarita argagixisada Al-Shabaab isagoo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in meel qura looga soo wada jeeso kooxda argagixisada Al-Shabaab dhibaatada baan ku haya shacbiga Soomaaliyeed booqashadeennii aan ku nimiday dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dowlad goboleedka Galmudug maanta ku soo gabagabowday meeshaan ku soo gabagabeynayna runtii meelii aan tagnay laga xoreeyay cadawga meel aad iyo aad u qurux badan dadaal badan dadkeedii ay muujiyeen runtii aad iyo aad loo dadku u istaageen maamuladu u istaageen oo runtii meel fiican la gaarsiiyay dagaalka iyo dadaalka lagu jiro nimankan waaye wax yaraa noo dhiman wax yaroo noo dhimanna ilaahay idankiis waa dhameystiraynaa mar dhow aad iyo aad ayaan raalli uga nahay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaan nahay dadaalka Hirshabelle ka socda iyo kan Galmudug ka socda intaba meel kasta oo deegaanada ka tirsan ama jamhuuriyadda Soomaaliya ka tirsan oo shabaab uu joogana mana nasanayno mana hakanayno inta uu shabaab joogo ilaahay idinkiis waa daba soconnaa gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan meel aad iyo aad u sareyso gabagaba qaybtan oo sidoo u sheegay madaxweynaha waay qaybta galbeedan u soo soconnaa mar dhow ayadana waad maqli doontaa deegaanada galbeedka
webiga shabeelle jiro dhan oo ayagana muxuu ahay shabaab laguma haayo la leeyahay horumarintii iyo mashaariicdana mugaasaa dadka iyo nafiskaba ugu horrayso ilaahay idankiisa yaraa dhiman dadka Soomaaliyeed meel ka soo jooga waa u hambalyaynayaa waana bogaadinayaa ciidankooda iyo shacabkoodaba guud ahaan siday isu leeyihiin istaagay u istaageen ka hortagida shabaab dadka waliba Hirshabeelle iyo Galmudug joogahay sida ay ugu safteen arintaas waxaan sidoo kale soo dhaweynaa bogaadinaa abaabulka xoogga leh ee ka socda koonfur galbeed deegaanada koonfur galbeed oo xuduudna la leh muxuu ahay dowlad goboleedka muxuu ahay Hirshabeelle xuduudda la leh ayaa ayaguna dadaal aad iyo aad u xooggan oo dhiiranaan iyo firfircooni badan ay ka muuqataa ka socda sidaas daraadeed waa astaamaha shabaab inuu naga dhamaanayo mar dhow hadii la yiraahdo waana dhamaynaynaa mar kale dadka reer Hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiina ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaanba aad muujiseen waa wax weyn waxa yarka ah nafla caariga ah cadawga oo meelaha dadka uu ku dhibaateeyana dhibaatayntaas 15 sano ku soo jirnay markaan waa heleelaqo waa markii meelii ugu dambeysay waay rafashadii ugu dambeysay waay waxa shabaab hadda bariyahan lagu arkaayo xaqaraxeen uga soo aragto aragteen xaqii qarxiyeen uga soo aragteen naxariis darradii bas ku soo aruurta marka ilaahay idankiis aniga waa ii soo muuqataa iftiinkii guusha ii soo muuqdo ma dheera insha Allah mar dhowna waa gaarina farxad iyo dabaaldegyo badan ayaana isugu imaan doonaa aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiinta la socotay ayaa indheyn ku sameeyay xarumaha dawladda ee ku burburay qaraxyada argagixisay ee bishayna soo dhaafnay ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan